iibsanaya ka iibinaya ka soo duubaya ka daawanaya intuba waxba isma dhaamaan. Assalaamu calaykum. maanta waxaan ka hadli doonaa runtii arrin sanadadan ugu dambeysay aad inoogu soo noqnoqonaysay, gaar ahaan dhowrkii sano ugu dambeeyey barahena bulshadana aad loogu arkayey. waa ceebeynta, fadeexadeynta, kufsiga, jirdilka iyo wax aan loola hadhinba hablaheena Soomaaliyeed ee nala gayaanka ah ee walaalaheen ah ee inoo dhaxaa runtii aan marnaba inaga istaahilin ayaa baryahan ugu dambeeyey, sanadan ugu dambeysay aad barahena bulshada ah noqotay isha ugu fiican ee dhaqaale laga sameyn karayo ayaan isiriyaan. haddaba arrintan ayaan doonaynaa caawa ka hadlo. dhowr su-aaloodna aynu isku weydiino barnaamijka intaynu ku dhex jirno. su-aalaha aan isku weydiinna waxaa ka mid ah arrintan maxaa mar walba loo soo celceliyaa, amba arrintan mar walba maxay u soo noqnoqotaa? arrintani miyayna dowladda amba dad madax dhaqameedka amba dhalinyarta amba communitiga Soomaalidu miyayna arrintan meel uga soo wada jeesan karay si waxaan loo dabar jaro amba waxaan uu bartiisa ku cirib jarno? arrimahaas ayaynu doonaynaa maanta barnaamijkeena aynu ku falanqayno ee kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. haddaba baryahan dambe sidaynu la wada socono waxaa soo badanaya oo maalinba qaab cusub amba weji cusub ku imanaya runtii arrinta hablaheena Soomaaliyeed lagula kacayo ee aadka u foosho xun leh. maalmihii ugu dambeeyey waxaan arkaynay inan ay 3 namood ay si bareera u kubsanayaan una duubayaan muuqaal. runtii arrinta aadka aan la yaabay waa muuqaalka kufsiga adduunka oo dhan waa ka dhaxaa inantiyada la faro xumeynayo oo la qasbayo, haddana muuqaal iyo ceebahayga dibadda ka runtii waa arrin aad u xun. haddaba arrintani maxay dowladda iyo communitiga iyo Soomaaliduba ay uga hadli laadahay arrintan ay dee 90% uga aaminsan yihiin? anu waxaan isiri hal mid weeyaan, waa arrin qabali dabada kula jirta oo qabyaaladii xumayd dabada kula jirta. sababtoo ah haddii qofka maanta arrintaas sameeya ayna xataa qabiilkiisu ay bartaa bari ka ahaan lahayn, barta loogu soo jeesan lahaa amba xukun adag lagu ridi lahaa amba qofka xanuun adag la barsiin lahaa amba dhibaato loo geysan lahaa, runtii arrinta way yaraan lahayd 96% baan odhan karaya. laakiin runtan marka arrintii ay qabaal noqotay odayaal lacag ay kala qaataan, arrintii inay sii xoogaysato maahee marna lagama yaabo. haddaba soo noqnoqoshadana arrinta keenaysaa waxa weeyaan waa qofkii oo aan jirin wax uu ka baqayaaba inuu dhib geysaba isma moodayo runtii. haddii laakiin anu arrinkan la yaabo waxa weeyaan intan arkayo dhanaan la yaabay hablahan ay dhibtu ku dhacayso miyuun walaal u dabqadaa jirin, inaadeer u dabqadaa jirin, walaal abti u dabqadaa jirin? sababtoo ah qofka dhibta geysanaya waa inan baa la faca oo arrinta dhammayn karayaba. haddii dee dowladdii wax qaban weydo oo madax dhaqameedka wax qaban waayaan oo qofkii dee waxaan sameeyey dhibtan sameeyey inanta tagaytada xaqaygii loo dhicin waayo, deemayna inaad tolkeedu soo dhiciyo. arrintaa lafteeda waan la yaabay runtii. arrintaasina waxay u baahantay in la dhiirigeliyo. arrintanina waxay u baahantahay in bulsho ahaan ayna meel uga soo wada jeesano. runtii waa arrin aad iyo aad inoogu soo badanayso, weliba qaybta ganacsiga. waxaan isir waa meel kaliya il dhaqaale fiican laga sameeyo marka calaa fiidoo qofkii $500 siiyo isagoo fiidooga dhowr beelood ka iibinayo, runtii ka iibsanaya ka iibinaya ka soo duubaya ka daawanaya intuba waxba isma dhaamaan. ilaahay ceebeena hablaheena Soomaaliyeed ha asturo dhammaantood. waa arrin aad wallaahi looga wada xumaaday baraha bulshada. maalmihii ugu dambeysay inantii yarayda ee lagula kacay kufsiga bareerka ah ee weliba loogu daray muuqaalka runtii aad waxaan la yaabay kii madooba ee hayay inanta. subxaan allah kii inanta hayay ka inanta xumeynaya ka duubayay. subxaan allah adigoon xataa ugu daligelin oo isla ceebaha qofka hataa raacraacin والله فيسبوك وكاغا صور بحيا ماشهد أتكتي سرايد وحكيرة إيقبا وكاغا صور بحيا أرنت لياب كلا وادتك شير كرين أي فافين أي عيبتا قفك إني دوك دقادو وقفكاس قفك لبدا قفك حمي وحوية وقفك شير كرين لأن يرتا شيرتا أمبا إسلبي تشينا فوكا كعصدا رنتي أرنتا ينتكدك دوناتان وعد ماشهد قواركتا أربود لقادا أيا والله آذو قرح بنا لهي
inahaas maanta kusoo koobi lahaa anoon hadli karay aan waxaan uga caadifaysana wallahi dhibta loo geysanayo hableena insha Allah ilaahay nasri uu soo saari doonaa dawladdu heelisa oo banaanka ka diirisa baarlamaankeena wuxuu ku mashquulsan yahay xeerka jinsi iyo balaaye iyo waxa muhiim hayn laakiin haddii qofka kufsi geysta amba video muuqaal soo duuba la idhaahdo waa la dhaadhicinayaa waa xabsi daayin oo halkaas lagu dhameynayaa shimbir dabo wax soo duubta lama arkin laakiin problemka waxaa keenaya cid aan mas'uuliyad ba iska saaray dadkii mas'uuliyadda lahaa oo saaray inahaas ku soo koobaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi